Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha qaaya leh meel kasta dunida ka joogtaan ku soo dhawaada macluumaad kooban oo aan uga hadlayno hogaamiyaha North Korea Kim Jong Un. Sida wada ognahay madaxweynaha North Korea waa kaligiis talis aan wax naxariis aan lahayn dalkiisana ku haya gacan bira. Haddii aad nagu cusub tahay waxaan ku leenahay ku soo dhawaaw gacmo furan. Hogaamiyaha Kuuriya Waqooyi Kim Jong Un oo ka mid ah hogaamiyaasha caalamka aadka looga boqo taliskooda dalkiisuna uu gacan bira ku jiro maadaama uusan xiriir wanaagsan la lahayn dalalka reer galbeedka ayaa waxaa adag in wax badan laga ogaado noloshiisa iyo dabeecadihiisa. Kim Jong Un waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay hogaamiye aad u adag dalkiisana gacan bir ku qabtay. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo ka mid ah hogaamiyaasha caalamka aadka looga boqo taliskooda dalkiisuna uu go'doon ku jiro maadaama uusan xiriir wanaagsan la lahayn dalalka reer galbeedka ayaa waxaa adag in wax badan laga ogaado noloshiisa iyo dabeecadihiisa. Kim Jong Un waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay hogaamiye aad u adag dalkiisuna gacan bir ku qabtay. Kim Jong Un ayaa barartay oo aad u ooyay maalintii uu dhintay aabihii oo lagu magacaabi jiray Kim Jong Il kaas oo dhintay 17 bishii Diseembar sanadii 2011. Kim aabihii ayaa u dhintay xanuun wadnaha kaga soo booday xilli uu ku safrayay tareen. Kim Jong Un waxa uu aad uga naxay dhimashada aabihii maalintii la aasayayna ay tahay maalinta kaliya ee la arkay isagoo aad u oonaya. Aabaha dhalay Kim Jong Un ayaa dalkaas maamulayay tan iyo sanadii 1994 oo uu xilligaas kala wareegay aabihii Kim Il Sung. Xilligaas wuxuu ahaa nin aad u da'yar oo wax badan ka ogaa qaabkii iyo siyaasadihii uu aabihii ku maamuli jiray dalkaas. Kim Jong Un xilligaas wuxuu ahaa shaqsi aad ugu dhawaa aabihii markii uu xilka hayay dabeecadihiisana qaatay. Taas ayaa keentay in markii uu dhintay aabihii isaga uu la wareego xilka. Tacsida aabihii ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay kumanaan shacab dalkaas kuwaas oo la ooyay Kim Jong Un iyo eheladiisa. Dhammaan dadkii ka qayb galay tacsida oo ay ka mid ahaayeen saraakiisha ugu sarreeya militariga Kuuriyada Waqooyi ayaa barartay. Inkastoo inta badan dadka uu u badan yahay inay aad uga naxeen dhimashada hogaamiyahooda ayaa haddana shacabka dalkaas waxay dadka qaar aaminsan yihiin oohinta ay oonayaan xilligii tacsida ay ahayd mid aan indhaha dhaafsaneen. Qof walba oo ka qayb galay aaska madaxweynahana uu ku qasbanaa inuu ooyo maadaama qofka aan ooyin oo khatar ugu jiri lahaa khatar ugu imaan kartay in laga sheekeeyo oo la dhibaateeyo. Dalka Kuuriya Waqooyi waxaa sahlan in qofka lagu dilo wax aan sidaas u sii weynayn taasna ay keentay in dadweynaha ay aad uga cabsadaan dowladda. Waxaa tusaale loo soo qaadan karaa markii hogaamiyaha dalkaas Kim Jong Un uu dilay adeerkii Jang Sung-tik oo lagu eedeeyay inuu doonayo inuu xukunka ka tuuro Kim Jong. Sidoo kale dalka Malaysia waxaa sanadii 2017 lagu sameeyay nin ay walaalo yihiin madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un kaas oo ilaa hadda aan la garanayn cidda dishay. Kim oo ah siyaasi aad u da'yar dhashana sanadii 1984 ayaa la sheegay in uu wax ku bartay gudaha dalkaas iyo dibadda. Waxa uu wax ku bartay iskuulka Yeovil ee dalka Switzerland. Dalka Kuuriya Waqooyi oo dalalka reer galbeedka ay saareen cunaqabateyn adag tahayna in qof ajnabi ah uu tago ayaa go'doon ku jiray sanado badan maadaama ay xurguf kala dhaxaysay dowlado ay ka mid tahay Mareykanka. hase yeeshee sanadihii dambe waxaa muuqatay in xoogaa furfurnaansho laga dareemay dowladda dalkaas oo dhowr jeer tijaabisay gantaalada ritada dheer kuna howlaneed samaysiga hubka nukliyeerka. Hogaamiyaha dalkaas Kim Jong Un ayaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay la kulmay hogaamiyayaal ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka. Mareykanka iyo Kim Jong Un ayaa muddooyinkii dambe waday kulamo la isugu soo dhaweynayo labada dhinac si ay uga wada hadlaan cunaqabateynta saaran iyo sidii dalkaas uu uga tanaasuli lahaa hubka nukliyeerka ee uu doonayo in uu samaysto. Waxaan filayaa inaad ogaatay maalinta kaliya ee uu barartay Kim Jong Un. Waxaan kaaga mahadcelinayaa daawashadaada tan iyo muuqaalka xiga. Sidaas iyo nabadgelyo. Amaan Allah.